hadalka wada hadalka hadalaysaan xaggaasuu ka baranaya xitaa inuu jiro wada hadal inuu jiro ixtiraam inuu jiro qadarin idinku tusaale fiican hadda u noqotaan waalidiintu hooyada aabuhu ilmuhu wuxuu noqonayaa ilmo fiican qodob baan ka hadlaya caawa waxa weeyaan caqabadaha hortaagan waalidiinta soomaalida ama qoysaska ama kasoo qaadadaan caruur dhalinba hooyo baalka waxa soo qaadata nin ragayo iyo gabadh isqaba maxaa caqabadana horita yaalla waxaan joognaa dhulalkan Yurub annagoo joognaa dhibaatooyin baa jira ka dhaca badanaa inay haato caqabado nagu haata waa maxay anuu shan baan ku soo koobay wayna ka badnaan kartaa wayna ka yaraan kartaa kow maqnaashaha wada hadalka saaxiibtinimada nacam ka hadlaya ninka ragga iyo qofka dumarku markay intayn is aroosin ka hor saaxiibtinimada ka dhaxaysa shukaansi wacan hadal wacan hadiyado wacan wax walba ma garan sifooyin wacan laakiin sanad iyo bar kadib guurka ama sanad kadib ama laba sanad kadib waxa la arkaya qofkii inuu ka go'ayo hadalkii ama xiwaarkii ama wada hadalkii saaxiibtinimada waa cilaaqada ugu weyn adduunka ee fiican macnaha laba qof ka dhaxayn kartaa sida nabiga calayhi salaatu wasalaam saaxiibkiisu wuxuu ahaa ugu fiicnaa abubakar sadiq tusaalaha ka qaadana markaas oo kale waxay xiwaar marku jiro saaxiibtinimada wax walba fududaan kartaa markaa hooyada iyo aabuhu hadday saaxiibtinimo ka dhaxayso wala hadlaan waa la wala hadlaa maaha in laga hadlo koontooyinkay misaa lacagta ku jirtaa maxaaga la soo bixi carruurta xagga tegaysaa wax walba ka wala hadlaa aan ahayn gurigoon ee saaxiibtinimada ha noqoto siyaasad ha noqoto kubad ha noqoto wax walba noqoto marka wada hadalka yaanu hadalku kala goyn hooyada aabaha xiriirka waxa caqabadana hortaagan waxay hadal la'aanta labaad ninkoo ka maqnaada mas-uuliyaddiisa ninka raggaa dhulkeena marka xaggaa joognay mas-uuliyaddu waxay ku koobneed qofka dumarka ayadaa wax garanaysa ayadaa wax soo iibinaysa ayadaa wax korinaysa ayadaa isku keenaysa ayadaa jaamacad ka soo saaraysa dhul qurbaa la yimid waxaas ma shaqayn karo de waxay dhulkan qurbaa la yimid waxa weeyaan dadka kale ina ka socdaatid maaha ummadaha xaggan ku nool dadka dhulkan leh ayada laftoodu way iskaashaan qofka dumarka iyo ninka ragga mas-uuliyadu ninku raggu leeyahay hadduu qofku ninka raggu islaam mas-uuliyadaha aad ku haysay ama ahayd nacamti maalintoo dhan maqnow soo hurdo doono guriga xitaa haddaa u noqono diinteena islaamka meelay kaga taalla ma jirto nebigu calayhi salaatu salaam sooma werin lagama haayo qur-aankana kuma taalo ninka ragga ilaahay u karaamiyey mas-uuliyad buu siiyey weyn oo culus ninka garan waaya mas-uuliyaddiisa adduunku garan waayey maanta yaa aakhirana uu sheegaya macnaha waxa weeyaan nin karaamadiisa iskaga dila xitaa adduunka marka la joogo ninka garan waaya mas-uuliyaddiisa ninka ragga waa ninka ragga waxa weeyaan mas-uuliyadu ilaahay siiyey oo badan waa inaan u noqonnaa taa eegna weeyaan maaha inaan dhaqan aanan fiicneen oo xagga islaamkana aanan u fiicneen xagga mujtamacana ku jirnana xitaa dadku kula yaabayaan inay la nimaadna maaha oo tusaale ahaan qofka dumarka ayadaa ciyaalka iskuulka geenaysa samtooladeeda geenaysa dhakhtarkeeda geenaysa cuntadeeda karinaysa ninkay ragga markaa de suuqan fadhi ku dir waayo markaa qofkii dumarku boqolkiiba 90 ayadaa qabataa hawshii de waay hadduu markaa ninka raggu muxuu mas-uuliyaddiisu maxay tahay markaa wey isku dhaafka hawlaha iyo saddexaad isku dhaafka hawlaha mas-uuliyada dumarka iyo ragga raggoo iyo dumarka oo isfahmi waaya xagga mas-uuliyadaha يعني معناها إنك رجل مسؤوليتي سمحت هاي قفك دمر كمسؤوليتي سمحت هذو ماشي كنت شلون سلام مركورة شكلنا قدر كوكبات وها حوار والله هذا الكو واحد ما يدبع سنان ولا سفهمية أنت مال ولا فرسان ولا يونيو مسؤوليتها أنا قاضو وأنا يجوا حبارو قف دمرة وأنا أضعني الرجال مسؤوليتها مراها علوسة أضع قاضية هذا اللي أفكر ويدي إنك صاي كوها بونتاي إنك رجل إنه قاضي علايس كجوري واحد علوس ونين علوس إنك رجل قاضي كرو soo aanan sugin baa qofka dumarkana ku tiraahdo wataaweyn weeyaan magalata markabka badda maraya laba qof ma wadaan hal qof baa wada taasna waxay ku khusaysaa waalidiinta abalka dumarka macnaha waxa weeyaan inuu meesha jiro hogaamin way fiicanta nabiga calayhi salaam wuxuu yiri saddex hadaa meel u baxdaan qof ahayn amiir hayn noqdo saddex hadaa meel u baxdaan jid
hal qof amiirayn noqdo tusaale qaata nabiga calayhi salaatu wasalaam xitaa wuxuu yiri macnaha waxa weeyaan qofku inuu meel walba hadduu ka eego caqliyan hadduu wax ka eego diiniyan hadduu wax ka eego dariiqa saxsan buu ku dhacayaa waxa u tagnaa afraad dhaqaalaha marka qorayay baan yaro qoslo waxaan xusuustay gabay af carabiya oo leh yaa dakhala alfuqru min albaab haraba alxubu min annaafida hadduu fuqrigu albaab ka soo galo jacaylku daaqadu ka baxa dee uu carara marka macnaha dhaqaalaha ilaahay ha la aamino qofku hadduu ilaahay aamino oo fahmo noloshan wuxuu u yimid qofku inuu aamino ilaahay gacantiisana ku jirto xulba inuu aamino qofku waxyaalahan risiqa loo bixiyo ama lacagtu way timaado way tagtaa ruux ku hor taagan iyo caruur mana tegi karto mana mar walba ku hor taaganta niyadda fiicani ilaahay wuxuu ku arsaaqaa qofka niyadda fiican niyaddaada hadday fiican tahay ilaahay ku arsaaqaya walow xataa heedhe hadday dakhalkaagu yaryahay ilaahay meel kale ku arsaaqi karaa qofka dumarku ma aha in raggaa u aragto qof mashruuc carruurta iyo baalki iyo ninka raggaba dee dhaqaalo lagu xisaabtamo dhulalkana joogno yurub badana waxa dhibka keena waa dhaqaalaha weeyaan soo gala guriga qowmiyadaha kale dadkan sharcigan samaystay ee magaranaysaye u nimid kuma dhaqmaan sidaanu maanta ku dhaqamno waayo bani aadamku dhaqaaluhu ka weynyahay bani aadamkaa dhaqaalaha ka weyn waayo bani aadamkaa dhaqaalaha keena marka haddaad dhaqaalaha ka weynaysid bani aadamka qiimo uma yeelaysid markaa ninkii aabbaha laftiisa qiimo hooyadu uma yeelayso waxa weeyaan inay ku dadaalno taa weeyaan dhaqaalaha inaa waxa weeyaan qofku inuu aamino maaha ilaahay aamin waxa weeyaan qofka dumarka qofka ninka ragga inay ilaahay aaminaan ilaah baa wax bixiya ilaah baa wax siiya ilaah baa dadka wax ka qaada iimaankay wax ka tahay oo ka mid tahay waa tashanaad ka fogaashada qofku inuu ka fogaado nacabta diinta iyo qiyamka islaamka macnaha waxa weeyaan qiyamka islaamku keenay iyo diintii qofku ka fogaanaya dee hadduu garto qofku ilaahay mas'alooyinka aan ilaahay noo soo saaray dhulkan noo keenay yurub inay tahay imtixaan oo la eegayo qof walba wuxuu camalkiisu noqon doono macnahaan tusaale baa tahay xaggan jooga maanta yurub haddaad tusaale fiican noqotid oo dadka deriskaaga dadka la joogtid ummadaha kale dadka la shaqaynaysid tusaale fiican oo tustid inaad tahay markaa wax bilaabnaya sawir lagaa qaadanayo ninkaas wuxuu ka yimid bii'ad fiican gabadhaasna wax ka timid bii'ad fiican waana dad muslimkuna waa dad fiican haddaad tusaale fiican noqon weydid ilaahuma hatid nin dayaarad wado samadaa baylota ninka ku ag fadhiya dayaarada ku wada hadduu kuwa arko qof aanan fiicnayn ama haatid mucallin hadday ardaydaada kuwa aragto qof aanan fiicnayn haddaad tahay maxaan qulaa dhakhtar haddaad tahay wax walba noloshaa ilaahuma haad xitaa cunto karinaysid dadku kula joogo mujtamaca bii'addu hadday kuwa arkaan qof aanan saxsanayn oo aanan qiyamkaagii fiicnaaya islaamka aad ka tegay dee tusaale fiican ma noqonaysid waxaa la ogaanaya inay bii'adda ka timid oo bii'ad xum islaamkana waxa ka bixisay sawir xum marka imtixaanka ugu waaweyn adduunkaaba ku jirtaaba marka aduu joogtid bar dhul yurub ninka raggaa ka hadlaya qofka dumarka weliba ninka ragga 100% weliba waa imtixaanka adduunka ugu weyn walaalayaal aad baan salaamay iga raali noqda haddaan ku dheereeyay waxa weeyaan nabiga calaysalaatu wasalaam waxa uu yiri xubba li akhiika ma tuhibbu li nafsika waxa naftaada u jeclaatid walaalkaa u jeclow walaalayaal qofka banaadamku kaliya wax kuma badbaado wuxuu ku badbaado mujtamac dhisan oo fiican waxaynu waxa ku jirnaa hog kaliya taa kula jirnaa hoggaas cid istiraada kaligeed ka bax ma badbaadi karto laakiin waxa ku badbaadi karnaa ummad wala fiican mujtamac fiican tusaale fiican aan noqon walaal aad baan salaamay casharkii labaad qaybtiisa xagaas ku labaad marka aad baan salaamay walaalahay isku soo duceeno khayr isku rajayno insha Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.